waa mar kale iyo barnaamijkeenii ganacsiga oo aan maanta ku booqanay xafiiskooda Cafi Solar Home Renewable Energy Company waa shirkad ka shaqeysa samaynta iyo soo dejinta solarta waxaynu hadda halkan la fadhinaa xafiiskiisii managerka guud ee shirkadda Saciid Abiib mudane Saciid ku soo dhaw barnaamijka ama soo dhaw Saciid waxaad naga warantaa xilligii la aasaasay shirkadda iyo sababihii loo aasaasay shirkaddan horta markii hore magaceeda waxa la oran jiray Cafi Solar imikana waxa lagu laray oo lagu biiriyay Home Renewable Energy Company oo loogu talagalay inay ka shaqeyso geeska Afrika oo dhan waxaana lagu dardargeliyay si ay u dabooli karto baahiyaha tamarta ee ku shaqeeya cadceed kolkii la aasaasay waxay ahayd 9 sano ka hor inta oo dhan way ka jirtay wadanka laakiin waxa dardargeliyay tamarta energy-ga ee loo baahan yahay ee ay si balaadhiyeen isticmaalka mobileska oo u baahday in la helo tamar had iyo jeer lagu charge gareeyo ayaa keentay markaa in loo baahdo meelaha durugsan inay helaan tamar ay ku charge gareysan karaan iyagoo ka fog magaalooyinkii taasi waxay dardargelisay markaa ay nagu dhalisay in aan biirino service-kii on keeno qalab reliable oo lagu kalsoonaan karo oo warranty-giisii leh oo quality ah oo aan ahayn qalab dadka had iyo jeer sidii caadadu ahayd ama ka xumaanaya ama marka laga iibsho lagaga harayo oonan lahayn dabagal iyo garanti waxaad ka warantaa waxyaabaha aad iibisaan ee ay shirkaddu hayso maxaa ka mid ah waxyaabaha shirkaddu hayso waxaa ka mid ah tamartii cadceedda laydhkii waxaa kale oo ka mid ah marwaxadihii dabeysha dhulka kulul oo kale lagu isticmaalayay sida berbera oo kale luqaya oo kale zeyda oo kale dhulkaas oo dhan waxaa kaloo iyaguna jira TV-gii systemkii TV-ga wadayay waxaa kaloo oon iibinaa pump systemkii ceelasha kaga soo saarayay biyaha taasoon had iyo jeer u qiyaasno kolba ceelka dherarkiisu hoose intuu yahay iyo quantity-ga ama xaddiga uu biyo doonayo aan u qiyaasno iyaa markaa aan u qiimeynaa qofkii iyadoo aan kolba eegayno tamarta u baahan yahay oo ah inta biyo uu doonayo iyo inta uu ka soo nuugayo labada arrimood waxa kale oon dadka ka iibinaa talaagadihii solarka ahaa oo systemkoodii oo iswada wata oo solartoodii wata batterigoodii wata talaagadii oo German oo steka ah wata iyagoo iswata oon u rakibno oo 1 year warranty aan siino qofkii meelo badan aan ku soo rakibnay iyaa iyaguna jira oon u soo bandhigno waxaa jira ugu muhiimsan laydhar yar yar oo tuulooyinka iyo dadka baadiyuhu ay ka faa'iideysan karaan oo laftigooda quality-gooduna aad u wanaagsan yahay garantiina leh oo qofkii mobile-kana u charge gareynaya reerkiisiina ama ciyaalkiisiina ay ku heli karaan iftiin ay ku dhigtaan casharkii ama ay ku qabsadaan habeenkii wixii kolba ay qabsanayaan waxaa kaloo oo jira iyaguna in aan kolba u qiyaasi karno qof kasta gurigiisa wixii uu doonayo ama qofkii guri doonaya inuu dhisto oo solar oo qura oo ka dhigo in xitaa dhismaha aan raacin karno hore oon u samayn karno in dhismaha hore la raaciyo oo wixii lacag kaga bixi lahaa electriga caadiga ah inuu rakibto isagoon tamar haysan ay ku qaadan karto inuu qofkii gurigiisii isagoo intii uu bixiyay oo heli karo isagoo tamartiina u taalo gurigiisina u dhamaaday labadiiba yacni oo heli karo taasna waan uu soo markaa ma qalab gidaarada la gelinayaa mise waa qalab sida laydhka wire la gelinayo qofka marka guri dhisanaya waxa laga yaabaa inay 10% ay kaga baxdo electric marka haddii 10% oo ugu talagalo inuu solar bilowgaba aqalka uu ka dhigo 10% kaasi way ku filan tahay inuu helo tamarta uu u baahan yahay marka ma waxa saaraysan banaanadii dusha mise gidaarka laftirkiisa solar ahaan loo sameeyaa gidaarka laftirkiisa la soo raacinaya xarkii solarta ahaa ee quality-ga ahaa way xarkahan caadiga ee conventional-ka la isticmaalay quality-gooda aad uma fiicna marka loss badan bay sameeyaan marka xarigii solarka la soo raacinaya guriga marka la dhisayo hadhowna waxa lagu sii wada talagalaya systemkii electriga guriga ee caadiga ahaa oo ka jawaabaya sida international normska iyo standardkii saxda ahaa hadhowna waxa lagu talagalayaa guriga dushiisa in loo saaro solarkii u baahnaa iyo meeshii baytarida loo dhigayay kaasoo ku filan doonta marka wixii tamar u baahan yahay
kolba intii qofba loo qiyaaso ee qofba guriba ay tahay tabartiisu kaasina wuxuu ahaa maariyaha guud ee shirkadda Cafe Solar Home Renewable Energy Company oo waraysi kooban inaga siinayay waxyaabaha ay shirkaddu iibisay waxyaabaha ay hayaan. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.